kulanti wacan oo wanaagsan ciyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel walbo dunida dacaladeeda aad ka joogtaan. Halkani waa Topsom TV. Ku soo dhawaada warbixin aan idinkaga soo diyaarinay xaaladda dalka Rwanda. Falaagada M23 ee ay Rwanda taageerto ayaa ku sii dhowaanaya magaalada Uvira oo ku taala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, sida ay ilo wareedyo u sheegeen BBC-da. iyadoo dhawaan ay la wareegeen magaalooyinka Bukavu iyo Kamanyola iyo Luvanji. Jabhadaha M23 ayaa la sheegay inay u dhaqaaqayaan magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Koonfurta Kivu, halkaasi oo ay ku nool yihiin in ka badan 700,000 oo qof. dadka deegaanka ayaa la hadlay BBC-da ayaa u sheegay in walaac uu sii kordhayo iyadoo ay jiraan warar sheegaya iska hor imaadyo u dhaxeeya ciidamada Congo iyo kooxaha dawladda taabacsan. Rihema magaceeda saxda ah, hooyo leh 3 caruur ah oo degan Uvira, ayaa BBC-da u sheegtay in xiisad ay ka jirto magaalada kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in dad lagu dilay Goma iyo Bukavu. haweenka iyo caruurta ayaa ah dhibanayaasha ugu badan ee colaadan ay saameysay. Laakiin sidoo kale ma garanayo bay tiri waxaan u sameeyno waqtigan. M23 la sheegayo inay u soo kacdoomeen Uvira iyo Atare. BBC-da waxa ay fahansan tahay in dadka u dhashay Congo ee u qaxay Bujumbura oo ah magaalada ugu weyn Burundi looga baahan yahay inay martigeliyaan qoysas aad u fara badan oo aagaasi ku qaxay. dadka deegaanka ayaa sheegay magaalada labaad magaaladii labada maalmood ee la soo dhaafay oo ay ka dhacayeen iska hor imaadyo u dhaxeeyay ciidamada DRC Congo Afridis iyo maleeshiyaadka taabacsan ee lagu magacaabo Wazalendo, iyadoo dagaalka dambe la sheegay in ay isku dayayeen in ay ka hortagayaan askarta ka baxsanaysa magaalada. dagaalyahanada Wazalendo ayaa la sheegay in ay doonayaan in ay la wareegaan qoryihii iyo rasaastii ay wateen ciidamada DRC ee Congo, iyaga oo ku eedeynaya askarta in ay ka baxeen furimaha hore ee dagaalka ayna u ruqaansadeen dhanka koonfureed ee Crimea. Wazalendo waxa ay ku kaceen in ay ka soo horjeesteen xadgudubyada ciidamada caadiga ah, waxayna codsanayaan ciidamo joogto ah si ay u siiyaan hubkooda, ayuu yiri qof laga soo xigtay isha warkaasi, isagoo oo intaasi ku daray ilaa 15,000 oo reer Congo ah ay u gudbeen dhanka Burundi. weli waxaa halkan imaanaya buuyi korneelyo badan oo ka tirsan ciidamada caadiga ah. Shalay qaar badan oo ka mid ah ayaa doonaya in ay ka baxaan magaalada, waxa ay tagayaan Crimea iyagoo raacaya doonta Aminiya. qof kalena waxa uu intaasi ku daray in khatartu ay intaasi ka sii badan tahay. wararkan Topsom TV ay ka soo xigtay BBC-da ayaa waxaa ku cad in waddankaasi qallalaasaha iyo dagaalka uu aad ugu sii kordhayo. dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn oo ah hay'ad samafal oo bixisa gargaarka caafimaadka ayaa ku baaqday in ay ilaalinayso rayidka howlgalka caafimaadka iyo gargaarka bini'aadanimo. magaalada oo dhan baa la yiri kooxaha caafimaadka iyo kooxaha kuwa bini'aadanimada ka shaqeeya ayaa halis ku jira. isbitaalada gobolka waxa ay sii wadaan qaabilaadda dadka dhaawacyada iyo dhimashada ay ka soo gaartay dagaalada halkaasi ka socda. asaasaha kooxda cilmi baarista Congo ahna Professor ku-xigeenka jaamacadda Simon Faris Johnson Street ayaa sheegay in ay jirto calaamad muujinaysa in tani ay tahay bilowga dagaal dheer.
jabhadda M23 waxa ay bilaabeen inay dhisaan dhismayaal maamul qaab dhismeedka canshuuraha waxayna helayaan shaqaale cusub waxayna si qoto dheer ugu sii socdaan Congo. Eneveri waxay u muuqataa inay tahay hal meel oo dagaal daba dheeraada ka dhici doono ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Mr. Steamis ayaa xusay inta ay ciidamada Burundi ka baxeen ay ciidamada Koonfurta Afrika ku sugan yihiin xeryo ku yaala gudaha magaalada Como waxaana la waayay qandaraaslayaashii ammaanka ee gaarka ahaa. sidaas darteed militarigu ayaa wax yar oo lagu xoojinayo M23 ma jiro. toddobaadkii la soo dhaafay M23 ayaa la wareegtay gacan ku haynta magaalada Bukavu iyadoo ay si iska caabin yar ay kala kulmeen ciidamada Congo iyo xulafadooda. nolosha halkaasi ka jirta ayaa caadi ku soo laabato sida ay sheegayaan ila wareediyo iyadoo magaalada ay gacanta ku hayaan jabhadda M23. colaadan tobanaanka sano jirsatay ayaa asalkeedu ka timid qayb ahaan xasuuqii Rwanda ee 1994 markaasoo ku dhawaad 800 oo kun oo qof oo u badnaa Tutsi ay dileen xagjiriin Hutu ah. kadib Hutu badan ayaa u qaxay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay ku jiraan qaar ku lug lahaa dilalka Rwanda waxaana ay sheegtay in ay weli halis yihiin. dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in Kigali ay isha ku hayso macdanta aad u badan ee Congo taasi oo muhiim u ah inta badan tiknoolajiyada adduunka oo ay ku jirto laptops iyo telefoonada gacanta. si kastaba ha ahaatee Kigali ayaa beenisay in ay taageerto falaagada. Ismaaciil Ayaanle, Topson TV, Muqdisho.